midda kale waxaa weeye iimaan allah subxaanahu wa tacaala in la rumeeyo shareecadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku soo dejiyena laga xukum dhigtaa waa laba shardi oo u ah lagama maarmaan xaqiijinta islaamnimada. labadaa shardi haddii midkood la waayo islaamnimo ma xaqiiqoobayso. dhinaca kale waa laba arrimood ama laba shardi oo ka soo dhex baxaysa macnaha xaqiiqiga ah ee kelimadda tawxiidka ka soo dhex baxaysa wey oo ah tawxiidka ama shahaadateynka laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. macnaha ay xambaarsan tahay baa sidaas in alle keligii la rumeeyo wixii uu nebi moxamed ku soo dejiyena sharci laga dhigto. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka arrintaas culayska ay leedahay isagoo tilmaamahaya wuxuu sheega oo in badan qur'aanka ku cad ciddii kaad bayrta waddadaas ee waxaan alla soo dejinin wax ku xukumta oo dadka ayadu muxuu ahaa afduubta in ay xerada ka baxeen oo gaalnimo cad ay ku dhaceen. oo ilaahay wuxuu leeyahy waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum alfaasiquun. waa saddex sifo oo isdhammaystiraysa hal macnana sheegaysa waa qofkaas inuu khadkii ka baxay. waa qoladii talada marooqsatay ee ayagu dadka waxay samaysteen ku kaxeeyey ta ilaahay kiisii meel iska dhigeen.